waxaan kor uga jeedaa aragtidooda qurxoon waxaan xusuustaa meeqa ayay nala wadaageen farxadooda dhambaaladooda ayaa ah kuwo fara badan oo inaga soo gaaraya halkaa iyo halkaa marka ay ina waayaan fiiri dhankaaga midig iyo dhanka bidix waa hubaal inuu hadda ku ag joogo ama dhinaca hore ama gadaale uu kaa jiro waa macquul oo waad dhoola caddaynaysaa aragtidiisa awgeed waxaa muuqaalkan kuugu sheegi doonaa wixii ay caalamku iyo dadka ku nooli ay ka dhaheen saaxiibtinimada haddii aadan ka mid ahayn ilaa iyo hadda bahweynta ku xiran janalka Caamir Yare fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad saarto subscribe gambaleelkana aad furato si ay kuu soo gaaraan dhammaan muuqaalada aan kuu soo gudbinno ma jirto wax ka qurxoon saaxiibtinimada marka lagu dheeho darajada walaaltinimo waxaad la timid si ka duwan oo ma tihid saaxiib iyo jacayl laakiin waxaad tahay nolol saaxiibkaygiyow haddii aad dareento xanuun oo aad ilmayso maalin ha hilmaamin nasiibkayga ah inaan kula qaybsado murugada cadaaladdu ma ahan inaad si wadajir ah u faraxno kadibna aad keliga dul hogato godadka mugdiga ah ee murugada saaxiibtinimadu waa waddan haddii aan ka maqnaano waxaan dareemaynaa qariibnimo ma jirto wasni uu leeyahay saaxiibtinimada lagumana qadaro lacag la jirka saaxiibtinimada ayay murugooyinku ku damaan noloshu waxay bartay saaxiibka iga maqan waqtiga murugada in uusan qiimo ku lahayn waqtiga farxadeyda saaxiibtinimadu waa qoys waxaana dhalay mawaaqifta maalmaha saaxiibtinimadu waa dhagaxa oo kale mana burburiso waxaanan ka ahayn dhagarta khiyaamada saaxiibka dhabta ah waa kan ah garabkaaga marka ay caalamkoo dhan ka tagaan nabadgelyo ha ahaato kuwa aanan doorsoomin oo aysan kala geenin dariiqyada oo aysan bedelin duruuftu waxaan haystaa saaxiibo u dhigma 1000 xidigood oo ka soo baxaya samada mar kastana iftiimiya oo nuuriya goor kasta oo uu wejigaygu fuulo mugdiyada murugada saaxiibadu ma ahan kuwa inoo muujiya jacaylkooda waqtiyada qurxoon ee waa kuwa inoo muujiya gacaltooyadooda waqtiyada adag anigu ma necbi cidna xitaa kuwii saaxiibaday ahaa ee i hoojiyey kama aanan zuulin inaan jeclahay laakiin ma awoodo inay mar labaad noloshayda la darsaan saaxiibada dhabta ah waa kuwa difaacaya naftaada weliba dadka hortooda adigoo maqan waxbana aadan ka ogeyn saaxiibtinimadu waa agagaarka mawaaqifta ee ma ahan inta sano ee aad tihiin saaxiibada waa kuu suurtagal in darajada saaxiibtinimo ay gaarto xiriir jacayl laakiin jacaylka uma noqon karo gadaal si uu u noqdo saaxiib duruufuhu saaxiibada ay kuu doortay waxa ay kaaga qurxoon yihiin kumanaan mar kuwaad adigu iskaa u dooratay haddii aad idhihi lahayd waa kuma saaxiibka wanaagsan waxaan kuu oran lahaa waa midka indhahaaga ka akhrisa murugooyinkaaga halka kuwa kale ay rumaysanayaan dhoola-caddayntaada marnaba ha ku faanin inaad leedahay saaxiibo ka badan inta tin ee madaxaada ku taalla markaad u baahatana waxaa kuu caddaanayso inaad ahayd bidaarlow waa naadir inaad hesho saaxiib farxaddiisa u baajiya si uu kuula wadaago murugooyinkaada saaxiibku waa kan garanaya xogahaaga qarsoon oo idil laakiin kugu jecel sida aad tahay qof kasta waxa uu hayaa hadiyad uu qofka la siiyo xitaa haba ahaato noloshaada saaxiib wanaagsan ma joogaan halkani dad shisheeye ah keliya waxaa joogo asxaab aadan weli la kulmin haddii aad wax iga weydiin lahayd saaxiibtinimada waxaan kuu dhihi lahaa saaxiibtinimadu waa hal naf oo laba jir ku wada jirta haddii aad doonayso inaad miisaanto qiimahaaga xisaabi asxaabtaada gunaanad iyo gabagaba ahaan waxaa jira saaxiibo ay saaxiibtinimadoodu tahay sharaf la jirkooduna uu yahay amni ilowshiyahooduna uu yahay wax aanan suurtagelaynin kuwaasina waa adinka